كسي قدبو حنو قد بينه سفر كاجي حكي صديقه حمر معاك وقول من حمر waxay igu dhiman horta waan u mahad celinayaa la taliyahayga intaan xamar joogay maadaama xamar magaalo weyn oo hawlaheedu badan yihiin ay tahay la saaxiib oo la taliya aan samaystay Xuseen Sabriya la yiraahdaa حسين صبري haye aqoon-yahanada daada yar ee wuxuu ka mid yahay mustaqbalka aan rajaynayo inuu Soomaaliya ka hogaamiyaan hadda Jarmalku buu u socday inuu nabad tagay baan rajaynayaa wadadad waxaa jira baasaboorka Soomaaliga haysta oo Jarmalka iyo Yurub taga miyaad ogtahay midaas dawladda maxaa dhacay haye laakiin dadku kuma baraarugsana hadduu qofku uu shaqeeyo oo nolol standard uu ku nool yahay oo incomekiisa iyo qaabkiisa iyo wixiisa la eego visa la siiyaa Yurub Mareykankuna hadda uu bilaabay baasaboorka Soomaaliga wiilkii ugu horreeyay Mareykan loo diray oo hay'adda socdaalka arrimaha ka shaqeynaysa gaar ahaan dadka maaragtay caanka way tagi karaan way soo noqonayaan in shuruudo gaar ay buuxiyaan baa muhiim ah marka ninkaas saaxiibkay waa salaamaya waxaan kaloon aad u salaamayaa oo u mahad celinayaa nin aanan magaciisa aqoonin iyo cid uu yahayba oo harqaan la ah oo wadada maaragtay iskeyska soobe wadadii magaceeda maba garanaye adoo ninkaas waa harqaan le guluus iga go'ay shaatigayga yaan u tagay inaan ka tasho ninkii aad buu ii salaamay uu igu dhegdhegay in culimo ahaa wuxuu khasab igaga dhigay inuu footoshaari ii tolo maadaama uu in badan ku fikrayay inuu arko meeshii aan guluuska u doontay inaan ka tasho footoshaari tolan baan kala soo baxay maalin kadib oo khasaban waliba ka cudur daarto uu yiri ma waaba khasab footoshaari markaad isor fadhideen adiyo ninkii Shambuuri ninkii lagu daba dhigay footoshaariga aan qabay ninkaas ay tolay meesha waxa la yiraahdaa Sundus may Siham Taylor baa la yiraahdaa meesha Siham Taylor Sundus iyo Siham waa gabdhahayga magacyadooda moogtay ma iloobi karo ma sha Allah curadayda Siham la marka Siham Taylor baa la dhahaa meel la yiraahdo Salaam Mall inuu ka soo horjeedaan u maleynayaa warinka aad baan u salaamayaa inuu Soomaalinimadaada iyo walaalnimadaada waa kaaga mahad celinayaa dadku waa dad walaala dadka Soomaalidu meel kasta isku arkaan waa ka baxay Muqdisho halkaas aan kaga baxay ninkaas waxaan rajaynaynaa in ganacsigaas uu bulaalo insha Allah Allahu barakeeyo waxaan leenahay Muqdisho ninka laga warayo nin qiimo badan weeye stuudiyaha oo isku duubana waanu salaameynaa macalinkaas sheekh hadduu jigjiga yimaadana waliba hana soo booqdo waa casuumeynaa insha Allah haduu leeyahay waayahay aan ka gudbo aan hore u socono sadiiqow halkaa حمر سفيان عنو أفكان كحدنا قرف وايه صديقه أنا هروس عن هالك حمر كدافنا أنا أوجد إنه مقالة دي كحكتي صفرتي وحنا مرينا واحد كحك سفر كاجي مقالة دي بلد وينه هو سفر كاجي هراء يوروب يتهريبك تذكر بلد وينه هذا دوما ما هالشيء جنسي وحنا مرينا يا أنا سواء عرفتي مقالة دي تذكر قيمها بنا إذا هراء نوش عرفتي maxaad kala kulantay safarkaagu muxuu daraa beledweyne ma dalxiis buu ahaa ma shaqo uu ahaa misana aragti dadkii ku wanaajiyay waagii dadkoodii baad isla soo arag muxuu ahaa safarkaagu waa mahadsantahay caliyow magaalada beledweyne horta waxaa jira meelaha qaarkood dhulka Soomaalida isagoo oo kulligood dhulkeenii yahay meelaha hadana naftaadu iska yar jeceshahay baa jirta adoo laga yaabo inaad xataa aqoon badan u lahayn marka magaalada taageerayaal badanna inaan ku leeyahay baan aaminsanaa marka laga soo tago Hargeysa waa meesha labaad mise saddexaad ee ugu taageerada badanahay weey marka waxaan u tagay inaan taageerayaashayda la soo kulmo magaaladana soo arko maadaama waqti dheer igu dambeysay magaaladu horta waa magaalo istiraatiiji ah oo dhowr iyo tobanka gobol ee Soomaaliya kala badh bay u tahay baa la dhahaa mid kale waxay ka mid ahaan jirtay 8 gobol ee hore bay sari iyo bay hoose iyo maada maqal baan u maleynayaa ma waad yareedaa marka magaaladaasi ganacsiga Soomaalida wadooyinka ka baxa meel walba way tagaan dhulka Soomaalida oo dhan marka waa meel runtii istiraatiiji ah waxay leedahay xoolo dhaqashada way ku wanaagsan tahay beerashada way ku wanaagsan tahay ganacsiga caadiga way ku wanaagsan tahay dad caan ana way leedahay oo Soomaalida caanka ah jacaylkana caan bay ku tahay
xataa guri waxaa lay tusay dabaq oo la yidhaahdo guriga jacaylka oo maxaa dhacay markaan idhi nin gabarh jeclaabaa iska soo tuuray baa laygu yidhi warawgii lagubku muxuu isu tuuray baan idhi mutu kale jeclaado ninkaasi inuu khibrad iga qaatay ahayd allah yarxam marxuumka waan u ducaynaynaa ma nin dabaq iska soo tuuray baa loogu gabadhu jeclaabaashu wax u suurtageli waayeen guribu iska soo tuuray waddada airportka marka loo socdo guri xaggan bidixdaa ka qabanaya weeye intaasoo dhan waxaa ka horeysa calow intaasi waa arar magaalada markii aan aadahayay halow beledweyne waa idiin soo socdaa baan soo qoray magaalada markii aan aadahayay halow beledweyne waa idiin soo socdaa baan soo qoray si ka duwan sida magaalooyinka kale markaan tago unbaa layla soo xidhiidhayay ama dad isoo dhaweynayeen ama dee meel lay dejinahayo oo lay marti qaadahayay laakiin beledweyne reer beledweyne muqdisho ay saameyn weyn ku leeyihiin way aada u joogaan marka waxaa ila soo xidhiidhay wasiirka tamarta iyo shidaalka baa ila soo dowladda xidhiidhay federaalka ha ma aqaano ereyga tamartu inuu sax yahay in kale ma aqaano tamartu malaha biyahay raaci jirtay adaa cilmigaa igaga horreeyey marka adigu wasiirka u karlaa waxbaro xageen anu kaaga horreeyay ha marka adigu wasiirka shidaalka yaa ila soo xidhiidhay oo tiim ii soo diray tiimkaasi waxaa hogaaminayay guddoomiyaha dhalinyarada gobolka hiiraan maxamed cabdulaahi daahiya nin la yidhahdo halkan ka salaamayo koox baana lagu daray wariyayaal iyaguna beledweyne caanka ah oo ibraahim baafo nin la yidhahdo uu ku jiro ya adigu ibraahim baafo yaa taqaanaa ibraahim baafo ha ibraahim baafo maxaa geeyay beledweyne soo kaan australia ku ogaa waxaa laga yaabaa baafooyinku inay badan yihiin baa laga yaabaa ibraahim baafo nin la yidhaahdo beledweyne iyo hiiraan iyo meelaha caanka ah baa jira marka waa nin yarba anigu iga yaryaan malaynayaa marka adigu koox baa laygaga daray magaalada muqdisho oo iraacay oo safarkii iyo tigidhkii naloo wada gooyey board baa naloo sii diyaariyey xaggii kalena koox kale aan ugu soo dhaweynaysay marka qaab ka duwan qaababkii magaalooyinka kale aan u tagayay waa sawirkaan haystay uun moogtay ku kasii fiican buu noqday baan xagga ku tagnay marka safarkayga wasiirkaa qayb ka ahaa wasiirka markii hore xafiiskiisii ugu qaabilay waan u mahad celinayaa waxaa la yidhaahdaa daahir shire xagga kalena walaalkii baa nagu sugahayay isaguna oo qudhiisu nin mas-uul ah markaan wada hadalleen wada sheekaysanay kadib waxyaaba badan baan ka wada sheekaysanay dee maadaama anigu reer qabri dahariya hore ahay reer qabri dahariya reer beledweynku xidhiidh hoose ay leeyihiin iyo calaaqaad hoose marka arrimo badan baanu ka wada hadalnay waxaan ka wada hadalnay magaalooyinka in xataa la walaaleeyo la mataaneeyo fikir noocaasa yaanu ka wada hadalnay waxaan kaloon ka wada hadalnay in waxyaabo inta badan reer qabri dahru ay ka sheegtaan dhibaatooyin waxaa jira xilligii bambalayo ka soo gaadhay oo dad shacaba la dhibaateeyey baa jiray oo la laayay barnaamijyadeeni horena markii aan idhi cuqdad baana lagu beeray waagaan aan yaraa dad badanoo reer qabri dahraa ka fal celiyey oo yidhi ma dhibkiina loo geystay baad inkiraysaa marka anu dhibkaa ma inkirayaan idhi laakiin in reer beledweyne dhib noo geysteen baan maqli jiray waa cuqdad moogtahay marka calaa kulli xaal in waxaana meesha laga saaro howlaaba socdaba kolley oo aniga iga horreeyey oo labada dhinac ay wadeen ma rabo inaan aada uga hordhaco marka in waxaa yarna meesha laga saaro ama arrimaha iyaga la daweeyo wax yar maaha qabri dahre marka la eego waa dhib weyn laakiin haddana waa wax la xalin kara weeyaan oo dad maaragtay ahlulxalli walcaqdi hadday galaan la xalin kara weeye kadibna labada magaalo iyo dadkoodu way isaga dhow yihiin bulshada kale in magaalooyinka la walaaleeyo oo la isku xidho oo la mataaneeyo sababtoo ah beledweyne saan kuu sheegay arrimaha ganacsiga iyo seelad weyn oo xoolaha ku taalo oo waxaa laga yaabaa maalinkii 150 gawaarida waaweyn ah oo xoolo wada qaybahooda kala duwan yaa ka baxa oo meel santar ay ku taallaa beerihii iyo khudaartii iyo wixiina caan bay ku tahay xoolo qudheedana way leedahay qabri dahare waxay ku fiican tahay jaamacad baa ku taalla aeroboort baa ku yaalla
dee Etoobiyadan kale iyo laga sii aadi karo meelaha kale ee geeska Afrika. waxaa ku yaala maxaan dhahayay jaamacadaasi dhalinyarada reer Hiiraan ama guud ahaan Hirshabelle iyo ereyadaas yaa ka faa'iideysan kara. nidaamka dawliga ana ama kaabayaasha dhaqaalaha Qabri aad bay uga dhisan tahay. marka magaalooyinka marka la mataaneeyo magaalada kale waxay kaga fiican tahay ee ka gargaartaa oo isku dayasha laga sameeyaa oo horumar baa laga sameeyaa. intaas waxaa dheer reer Feerfeer oo maaragtay xuduudda Soomaaliya iyo deegaanka Soomaalida ku yaala. Qabri Dahare waxay la leeyihiin waxa la yiraahdo dhaqan dhaqaale waxa la yiraahdo la leeyihiin ama iskaashi bay la leeyihiin family ah xagga familka ah qaybo ka mid ah reeraha degan Qabri Dahare iyo qaar ka mid ah reeraha Feerfeer iyo xagga degan dhaqan bay ku walaaloobeen oo dhaqan hoose oo dadka ereyadaas ay garanayaan baa jira oo xiriir adag bay leeyihiin oo soo jireen ah. oo xataa la sheegay mar in odayaashii labada deegaan ay laba wiil isdhaafsadeen oo dhaheen wiilkaana waa idinka wiilkana waa annaga macnaha walaalaynu nahay camal. marka maadaama Feerfeer xaggana iyaduna walaal bay kala tahay Hiiraan oo xuduud bay kala leedahay oo 45 kilomitir inay jirtaa baan u malaynayaa. waan u geli doonaa sheekadeeda. dhaqan iyo xiriir iyo ganacsi iyo wax walba xaggay kaga xiran tahay. xaggana dhaqankan kale ka leedahay iyadu qudheedu waxay ka qayb qaadan kartaa isku xidhka labadan magaalo ee waaweyn bay ka qayb qaadan kartaa iyo horumarintooda. runtii inaan markan bulshada isku xidhno oo aan walaalayno oo horumarkooda iyo wanaagooda ka shaqeyno oo magaalada Qabri Dahare qudheedu waxay u baahan tahay dad ganacsiga ku firfircoon. inta badan waxaa la dhahaa 4 dukaan oo waaweyn bay dadku raashinka ka soo qaataan. inta badan dadku biil iyo waxba iska qaataan ama dawladda ka shaqeeyaan oo waxba u soo dhaca dhaqdhaqaaqu ganacsigu kuma fiicna. marka taa qudheeda in la iskiciyo oo ganacsiga la waxeeyo oo la dhaqaajiyo nimankaas ganacsiga way naga fiican yihiin. qorshe noocaasa baan rabnay inaan wasiirka ka wada shaqeyno haddii la yiraahdo iyo guud ahaan reer Hirshabelle oo dee caasimadooda ay tahay Jowhar oo iyada qudheedu weli ii dhiman. dad badan oo marka mas'uuliyiin aan meesha isku soo baranay oo gudoomiyaha dhalinyarada Hirshabelle Cabdirasaaq oo halka ka salaamayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo dib u heshiisiinta magaalada Beledweyne oo qudhiisu xaggan ka soo jeeda Feerfeerta Soomaaliya oo hadda joogaba waan salaamayaa. waxaan rajeynayaa inaan insha Allah tacaala la kulmo jijigu joogaa hadday suuragal tahay waan casuumi doonaa insha Allah. marka mas'uuliyiin fara badan baan meesha kula kulannay. hotel baa nala dejiyay aniga dhalinyaradiiba. meelaha kale inta badan markaan tagay kaligeeba meel la dejinayay laakiin meeshan team baanu ahayn dhan. teamka nagaasi waxaa laga codsaday in meeshii aan rababa magaalada la soo wareejiyo layla shaqeeyo xataa iyadoo magaaladu ammaan tahay oo amnigeedu aad u fiican yahay haddana dhalinyaro xataa amnigeyga si gaar ah u suga baa laygu daray oo ila socotay. magaaladaan soo wareegnay waan soo shaahaynay. waxaan tagnay buundadii caanka ahayd ee liiqliiqato Hadraawi uu heesta caanka ka tiriyey. barnaamijyaan ka soo samaynay. meelo fara badan oo waxaa jira deegaanka Soomaalida caanka ah xaggaasna caanka ah. waxaa ka mid ah xaafad la yiraahdo Xawataako jira 2 meelood oo la yiraahdo suuqa Daraawiishta. mid waan tagay oo khudaarta hadda lagu iibiyaa magaalada bartankeedu ku yaala. midka kalena maanan tagin laakiin waa la ii sheegay. marka wasaaradda gaashaandhigga sayidka ku ooli jirtay baa la yiri. marka nimanka aad isugu dhaqan dhownahay oo inta badan waxaa la yiraahdaa beeshan hawiyaha ay ka midka yihiin daaroodka igu yar dhaqan dhow yihiin baa la yiraahdaa. niman aad aan isu dhex galo oo ka furfuran weeye dadkan kaleete maaragtay walaalaha yihiin. marka waan iskaga yaraa maaragtay dhaqan dhownahay. marka magaalada warbixinaan maaragtay ka soo diyaariyey si ka duwan sida meelaha kale dadka noloshooda kala duwan baan soo booqdo caadi baan magaalada u dhex galay. waxaan tagay oo ka soo khudbeeyay jaamacadda Hiiraan
waxaa la sheegay magaalada inay ku yaalaan ilaa 6-7 jaamacadood haddaanan khaldanayn marka jaamacaddaas waan tegey weliba qaybta gabdhaha yaan maaragtay kulan la soo yeelanay oo aan khudbad ka soo jeediyey waxaan la kulmay dhalinyarada gobolka hiiraan qaar ka mid a gaar ahaan waxaan kula kulmay xaafadda la yidhaahdo howlwadaag xaafad la yidhahdaa jirta howlwadaagtii muqdisho mooyaane xaggana howlwadaag baa ka jirta bise halgan bay ahayd talow ne markaas haa ii fiirso waan shaki iyagaa soo sheegi doonee ma howlwadaag weeye waxba shakin mahaye shanta dabaakaaya madow meel la yidhaahdaa jirto oo ay meeshaan kusii kulanay ahayd marka dhalinyaradooda yaa maaragtay si gaar ah ii marti qaaday oo dee magaaladu waa dhowr xaafadood marka xaafaddaasi kulan gooni ah bay noo samaysay laakiin dhalinyarada dee gobolka hiiraan gaar ahaan degmada beledweyn bay ahaayeen waa u mahad celinayaa dhammaantood waxaan kaloon tegey oon ka qayb galay xarun caafimaad oo lagu barto hooyada sida looga umuliyo xarun caafimaad oo lagu barto xarun caafimaad oo lagu barto ama branch jaamacadeed oo laga furay meesha oo caafimaadka lagu barto oo caafimaadka lagu baranayo gabadh reer beledweyne ah oo ay halkaa ka aasaastay waa dad waxbarashada iyo maaragtay ganacsiga iyo horumarinta arrimaha bulshada iyo xataa isticmaalka baraha bulshada iyo sportska iyo waxaas oo dhan dad active ku weeyaan oo saameyn leh marka halkaasna waan ka qayb galay oo xadhika jarkeedii yaad ka qayb gashay yaan ka qayb galay waxaan ka cudur daaranayaa inaan waqti u waayay dhowr iskuul oo rabay inaan maaragtay subaxii intaan galaasyada la gelin inaan maaragtay ardada la hadlo oon dhiirigelin siiyo naga soo codsaday baa jira marka laakiin duruufaha noo saamixi waayey ganacsiga khudaarta ee magaaladaasi geeska maaragtay dhulka soomaalida intiisa badan uu tagaa oo magaalooyin fara badan gawaari u baxaysaan aragnay oo meel kasta u kala socda oo jigjigadan xataa way timaadaa khudaarteedu taqaana mooyaane cambaheeda adoon ogeyn inaad cuntay baa laga yaabaa wuu yaalaa suuqan hadda khudaarta waad ka arki marka calaa kulli xaal meeshaasi dad baa inaga jira iyo deegaanba dad iyo deegaan aynu ku xisaabtano oo maaragtay nasab ah baa naga jira kadibna dee dhulku barwaaqo horta ma ahayn dadku waxay lahaayeen sadiiqow inaad noo timaado xilli barwaaqo ah oo dee beerihii iyo wixii oo dhan isla maaragtay nicmato fashuuq ay yihiin yaa fiicnaan lahayd laakiin abaar daran baa jirtay oo xooluhu weyd yihiin oo inkastoo meelo badan oo soo dhaafay ay dhaameen oo dee iyagu inta badan webigoodu ma qalalo caliow intaa waxaan kugu darayaa magaalada beledweyn dhibaatooyin fara badan bay soo martay oo xagga amnigu uu kow ka yahay waxaa kale soo martay caqabado ka haysta fatahaadda webiga shabeelle oo webigu si yara mucjise aad moodo in injineer uu sameeyey iyo u maraa oo mas oo kaleeta marka inta badan xaafado dhan buu kiciyaa magaaladana jooggeedu wuu yar hooseeyaa marka xataa waxaad arkaysaa guryo magaalada ka baxsan oo lagu leeyahay waqtiga webigu fataho yaa loo soo guuraa inta kalena way iska xidhan yihiin oo dadka qaarkii ay samaysteen marka magaalada horta caqabadaheeda ugu waaweyn waxaa ka mid ah webigaa horta in xal loo helo webigaas marka qaarkood wuxuu galaa xataa airboodka magaalada yuu xataa galaa biyihiisu galaan inkastoo hadda lii sheegay in laga xidhay marka dhibaatooyin fara badan bay magaaladu soo martay waa magaalo qadiim oo de markaad dhismayaasheeda iyo dabaqyadeeda iyo waxeeda aragto xadaaradeeda aad dareemaysid laakiin dhibaatooyin fara badan bay soo martay oo lasoo daala dhacday dagaalo fara badan waxay u baahan tahay oo hadda ugu badani waa nidaamkii dawliga ahaa dadku way dadaalaan way shaqaystaan guryahoodii iyo dabaqyadoodii wax way dhistaan laakiin waxaad moodaa inay ka yar maqan tahay dowladda federaalka ah iyo tan maaragtay hirshabeellaba shaqooyin badan oo ahayd inay ka qabtaan magaalada dhexdeeda inayna ka yar muuqanin baad moodaa marka waxaan kula dardaarmi lahaa magaaladaasi istiraatiijiga ah mansabkii ay lahayd ama wixii ay xaqa u lahayd in la gaadhsiiyo oo dee ama wadooyin ha noqoto ama ha noqoto nidaamka kale ee dawliga ah in aada wax looga qabto waxaa kaloo iyadana meesha iga yar muuqatay xagga negativeka markaan eego
qaabka isdhexgalka bulshadu maadaama dagaalo fara badan ka soo baxday dagaaladii nimankii lagula jiray al-shabaab oo kaleeto magaaladii laga saaray reero kala duwanna magaalada ay degaan oo dhowr qaybood ay kala degan yihiin ilaa 4 xaafadood magaalada waxay u baahan tahay in aad la isugu sii furfuro dhalinyaradu way isdhex maraan oo kubadda way wada ciyaaraan oo waa la isdhex socdaa laakiin haddana magaalo aan aad la isugu yar furfurnay la yar kala degan yahay oo la yar kala xidhxidhan yahay baad moodaa marka in wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta shaqo weyn baa halkaa uga bannaan maamulka degmada beledweynena dee waxaaba ku jiraba saan kuu sheegay qayb dib u heshiisiinta iyo maamulka qaabilsan laakiin in la xoojiyo oo laga shaqaysiiyo oo say tahay looga shaqaysiiyo bay u baahan tahay waxaa intaa dheer ciidamo fara badan oo kolba dhinac u socda oo aad arkaysid oo iyadoo magaaladiiba amni tahay haddana ciidamo fara badan oo tuutayaashoodii iyo qoryahoodii wata oo yar dareemayso in waxoogaa markaad ku cusub tahay aad leedahay maxaa khaldan baad arkaysaa kuwaana in laga saaro magaalada korka iyo hareeraha iyo amnigeeda ha laga sugo laakiin askartan dhex socda boolis caadi ah oo ay radu rabo dee bistooladiisii wixiisa wata laakiin in lagu soo daayo xaggaana laga yar waxeeyo si deganaansho dee loo dareemo oo qofka magaalada ku cusub ama ganacsatada ama shacabku ay deganaansho u dareemaan taasna waan soo jeedin lahaa waan ku talin lahaa waxaa intaas dheer dee meesha waxaa jooga ciidamo nabad ilaalin oo ka socda walaalaha Jabuuti hiil walaal airportkay joogaan meelo kale inay joogaanna waa suuragal waxaa magaalada ku taallaa xeradii caanka ahayd ee magaceeda aad maqli jirtay lama galay ninka galay baan ahaan ugu day eegaad gashay waagii la dhihi jiray maaha eege dehmee haddaan galay lama galay ciidanka degan baa na casuumay annaga aniyo dhalinyarada tiimkaygii lama galayda marka waxaa ku yaalla xafiisyo fara badan oo dowladda dhul ilaahay baa lama galay la dhahaa qaybta ciidanku mooyaane dhul ilaahay weeyaan marka maamulkii iyo xafiisyadii iyo waxyaabo badan baa isla degan marka taliyaha ciidamada aagaa jooga oo ciidamo ballaaran ah oo gobolka meelo kala duwan ka jooga taliya baakay nin la yidhaahdo oo aad u salaamayo reer jawiil ah asalkiisu yaa reer jawiil mataqaanaa degmada jawiil beledweyne u dhowdahay marka ninkaasaa anigii iyo tiimkaygii weliba 2 jeer buu na casuumay aad buu mahadsan yahay isagii iyo taliya ku-xigeenka guutada 72 ciidanka lugta Soomaaliya taliye muxuu ahaa Cabdullaahi magac buu lahaa waa salaamaya dhammaantood waan u mahad celinayaa intaas waxaa dheer nin la yiraahdo aadan shire oo wasiirka ay walaalo yihiin oo magaalada intaan joognay aad arrimaha naga uga shaqaynayay oo ahaa ninkii markii aan doobiga magaalada booqanayay magaaladu sida qabri dahro oo kale weeye oo doobiga waa laga yarfaanaa xogaa nimanka saan kuu sheegay waa isku yara dhaqan dhownahay marka waxaa la sheegay inuu hal doobi ku yaallo doobigaana dadku aysan wax u arkin muhiim ah marka waan soo booqday oo inkastoo isagii maqnaa meesha inta badan markaan aad lagu dhiirigelin waad ka yar maqnaane marka laakiin meeshaana waan tagnay runtii niman dhalinyaro ah oo wadankooda jecel oo inay isbedel nololeed sameeyaan diyaar u ahoo qaar beero qodanaya qaar ganacsanaya hawl un ku mashquulsan yaan meesha ku arkahayay laakiin nidaamkii dawliga ahaa yaa waxaad moodaa inuu xoogaa ka kala yara dhiman yahay oo maadaama meeshu dagaalo iyo waxyaabo fara badan ka soo baxday garab istaag fara badan bay uga baahan yihiin dowladda federaalka iyo tan hirshabeellaba intaas waxaa dheer garoonka diyaaradaha wuxuu u baahan yahay horumarin buu u baahan yahay waa garoon muhiima inta badanna dee Soomaaliya meelo badan oo ka mid ah dhulka dadku kuma safraan arrimo amni dartood mar walba aan tagayo anigu waxaan ka jecelahay safarka diyaaradda ka dhulkan ka jecelahay biyaha iyo hawada iyo waan ka cabsadaaba laakiin waxay u kalifaysay duruufta oo inaan diyaarad mar walba raaco marka
maadaama dadku dhulka aad u mari karin diyaaradaha la raacaa marka garoonkaasi maadaama muhiim yahay oo dhul ballaaran oo istiraatiiji ahna dadka uu ku xidhayo sida qudhiis wuxuu u baahan yahay horumarin in lagu sameeyo oo maaragtay waxyaabaha ugu horeeya ee dowladdu ay horumarinayso ay ku darto iyadana waan ku talin lahaa waxaan kaloo ku talin lahaa dadka qurba joogta ah ee gobolka u dhashay gaar ahaan magaalada beledweyne iyo ugu dhowdo qaab isku tashi ah inay waxyaabo badan ku hagaajiyaan oo horumarka maaragtay deegaanadooda ay kaga qayb qaataan waxaan soo maray meel yidhaahdo ceelgaab oo maaragtay tuulo qadiim ah oo waqti dheer lay sheegay inay dhisnayd oo feerfeer iyo u dhaxaysa iyo jawiil oo la ii sheegay ninkii soomaalida maraykanka ugu taajirsanaa inuu isbitaal dadka bilaash ku daaweeyo uu ka dhisay marka arrimahaas oo kaleeto waa arrimo dhiirigelin leh dadkii qurbo joogtu inay magaalooyinkay ka soo jeedeen kana shaqaystaan horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxaana ay ka qayb qaataan iyo wixii ilbaxnimo ay kusoo kordhinayaanba marka isbitaalku maxaa u dhisan yahay ma shaqeeyaa wuu dhisan yahay wuu shaqeeyaa marka marka taasina waa mid nin ninkaasaa dhisay cawaale nin la yidhaahdo oo aabihiiba ugu magac daray xuseen cawaale miyaa la dhahaa mise cawaale waa ninka maraykanka soomaalida maraykanka ugu hantida badan weeye waa salaamaya hantidaada allahi ku barakeeyaan leeyahay intaas waxaa dheer caliw waan kugu darhayaa dhalinyarada reer hiiraan ama kuwa beledweyn maadaama baraha bulshada aad u isticmaalaan anigana dad badan oo ay muuqaaladoodii waxooda soo gaargaaraan qabiilkii aad uga hadlaan arrintaa iyada laga digtoonaadaan dhihi lahaa sida xun loo isticmaalin sida xun loo isticmaalin maalan beledweyn yaa iskale reer hebel baa iskale hiiraan yaa iskale wax noocaasa waxaa jira baraha bulshada isticmaala gaar ahaan tiktok oo waxaas buunbuuniya uma wanaagsan waxaa weeyaan dad kala duwan inay magaalo joogaan waa qurux waana ilbaxnimo nin walba waxbuu keenayaa nin walba magaalada maaragtay waxbuu anuu hadda intaan dego xagga aan tago dee magaalada nacfi waan ka heli laakiin aniguna waxbaan kusoo kordhini dhaqaalaan kusoo kordhini canshuur baan bixini waxbaan soo kordhini marka inayna dadku xasaasiyad kala qaadin oo inta badan dadka baraha bulshada isticmaala qaar caana ku jiro oo dhahaa reer hebel baa magaalada gooni u leh waxaasi waa ducfinimo weeyaan waa jahli weeyaan ma garatay anagoo jigjiga ka tagnay oo fogaanta la arkay leh yaa intaanu tagnay si walaalnimo ah oo ehelnimo ah yaana loogu soo dhaweeyo oo loo maamuusay idinkoo wada degan waaba iska sii xigtaanba ehel baaba tiinba wiil iyo abtigii wiil iyo adeerkii gabadh iyo habaryarteed marka dad runtii qurux badan oo maaragtay si guud inta uga wacyigelinayna dhalinyarta meel walba ay joogaan Soomaaliyeed aad bay ugu badan tahay marka dadka noocaas inaan la maqal oo dadka noocaas dad wanaag idin haya aysan ahayn ee idinku cid walba aad iska xigtaan yaa muhiim ah sababtoo anigu hadda markaan halkan joogo de ilmahaygu waxay tagayaan iskuulka jigjiga isbitaal haddaan u baahdo karamardhaan tegi ama xaafadda iyada isbitaalka igu dhow halkanaan ka shaqaystaa doobigaygu ka shaqeeyaa dadka jigjigaa iga xiga hadda kuwa qabri daara jooga aniga asalkayga aan ka soo jeedo laakiin hadda kuwa aan la deganahay baa iga xiga haddaan dhinto iyaga ay aasi kuwaasi intay baska soo saaran yihiin baaba xilli ah marka dadku inay fahmaan nolosha dhabta ah qofka deriska kula ah qabiilku dooni ha noqdo inuu walaalkaa yahay oo la iswalaashado oo la iskaashado yaan halkaa fariinka si guud baan meesha arrinta ayadaa wax gooni ku ah baashii ma aha beledweyne keliya si guud baynu leenahay dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ka waantoobaan oo arrimaha xumaanta keenaya dhibaatada iyo ducfiga cunfiga inay iska daayaan qabyaaladda oo ay maaragtay wixii bulshada muhiim u ah oona ay ka shaqeeyaan insha allah haddii la yidhaahdo waayahay halkaana waxaanu ku dhammaynaynaa beledweyne si guud baan ugu mahadcelinaynaa annagoo isku duuban oo galay studio reer beledweyne waagii horena waad ka abaal sheegatay taariikhka ku jirtay maantana intii aad ka filaysay in ka badan baad kala soo kulantay waxaan leenahay waad mahadsantihiin